xisbiyada wicid iyo kulmiye Somaliland oo muddooyinkii u dambeeyay ay kulamo uga socdeen magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay fashilmeen wadahadaladii u socday xisbiyada siyaasadda Somaliland sidaas awgeed ay labadooda xisbi gaarkooda u gaadheen heshiis safagarad ah oo ku saabsan qaar ka mid ah qodobadii la isku maandhaafsanaa ee hortaagnaa qabsoomida doorashada wakiilada deegaanka Somaliland. Qodobada heshiiskan safaгаradka ah ee labada xisbi oo ka koobnaa 6 qodob oo ku jiray in xisbiyadu ay ku heshiiyaan in doorashadu ay waqtigeeda ku qabsoonto ayaa waxa warbaahinta u akhriyay murashaxii madaxweyne ku-xigeenka xisbiga u cid Professor Axmed Cabdi Muuse Abyan in komishanka doorashooyinka qaranka ay hadda jira uu bilaabo hawlihii diiwaangelinta iyo u diyaar garowga doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada. 3 sidoo kale waxa ay xisbiyada qaranka ee kulmiye iyo u cid isla qaateen in 1 August 2019 la soo xulo komishanka doorashooyinka qaranka ee cusub. komishankaas oo tiradiisuna tahay 7 xubnood. komishanka doorashooyinka qaranka ee hadda shaqeynayana ayaa u igman sii wadida hawlaha qabanqaabada doorashooyinka ilaa dhamaadka muddaxileedkooda. 4 in komishanka doorashooyinka ee cusub lagu daro 2 xubnood lagana dhigo 9 xubnood doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada kadib loona gudbiyo golaha wakiilada ee dambe. 5 labada xisbi qaran ee wicid iyo kulmiye waxay isla qaateen in meel looga soo wada jeesto qabsoomida doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada. wada shaqayn buuxdana lala yeesho ama ay la yeeshaan komishanka doorashooyinka qaranka. 6 in la sameeyo guddi madax bannaan oo si habsami leh ula socota geedi socodka diiwaangelinta iyo qabsoomida doorashada. waxaana labada xisbi u cid iyo kulmiyaha ay dawladaha dhaqaalaha ku bixiya doorashooyinka Somaliland ugu baaqeen in ay bixiyaan qaadhaankii ay ugu talagaleen qabsoomida doorashooyinka. sidoo kalena komishanka doorashooyinka ayaa ugu baaqeen in ay bilaabaan diyaarinta jadwalka doorashooyinka wakiilada deegaanka. heshiiskan ay sida wada jirka u gaadheen xisbiga u cid iyo kulmiyaha ayaa waxaan qayb ka ahayn xisbiga wadani oo isagu hore xisbiga kulmiyaha ugu eedeeyay in aanu diyaar u ahayn qabsoomida doorashooyinka sidoo kalena sheegay in ay kalsoonidii kala noqdeen guddiga hadda joogta. Xamse Xir Saxayd, codka bariga Afrika, Hargeysa.